waxaa dood ka taagan tahay sidaas leeyahay canjeero dhaqan ahaan Soomaali ma iskale halkee naga soo gashay Soomaali ma leedahay waxyaabo soo aad isu weydiiyay waxaas leeyahay canjeero waa dhaqan Soomaali oo waxyaabaha Soomaalida ee dhaqanka u leedahay qayb ka tahay inta markii laga soo tago canjeero Soomaali ma leedahay haa way leedahay waxaa loo adeegsadaa ereyga laxoox waxaas leeyahay halkaas inta ugu gudbina dhaqan ahaan xagee nooga soo bilaabatay ikhtiraacah in la sameeyo maxaa la yiraahdaa bahalkan la dhaho waxa lagu daraa cajiin inay soo bilaabato cajiinka kadib haddana burka in lagu daro canjeero saas ku timaaday dhaqan ahaan waxaan ka dareemi kartaa waagii dhalinyarada ahayn waxa aad u tagi jirnay makiinada cajiinka kuwii anaga naga horeeyay gabdhaha meesha cajiinka soo doona waxa sameyn jiray inaan dhaweyno ama xaafadooda inaan ka soo wadno cajiinka meesha la geeyno ka soo noqono meelahaas oo kale aad ugu badnaayeen dadkuna maamooyinka hore Soomaalida waxay aad uga ganacsan jireen caanaha iyo cajiinka hadda inkastoo laakiin inta badan hadda ay isleeyahay aad u soo yaraatay su'aal waxa la isweydiinaa marka makiinadii ma yaraaday sabaha waxyaabo kale midi makiinadaha inay yaraadeen awal xaafadooda waxa ka dhisnaan jirtay makiinad sidoo kale maamooyinka qaar waxa lagu magac daray hiblaayo cajiin hiblaayo tinaar hiblaayo canjeero sabaha waxyaabo kulli aniga markii laga soo tago aabe laga soo tago ayidii laga soo tago abkooy laga soo tago haddii qof la weydiiyo canjeero iyo dadka saarno la cunayo caadi ah sababta loo doortay waxa waaye way ka fududahay cuntooyinka kale tusaale qof haddii wadada subax bariis karinaya it takes time waqti qaadanaya baasada la igda soo kale muufada sidoo kale maxaa la yiraahdaa cambuura la karina haddii la soo kale idan laakiin baasha fududahay in kale iska diyaarna subaxi dadka kuriyaysa saddex qof afar qof ugu horeysa oo hormarin kartaa qofka ku imaado waa la sii karaa waaga anaga dugsi dhiganayay waxa sameyn jiray baasha canjeero dug waxa sameynay waa soo qaaday inkastoo meesha aan ku soo barbaaray oo cajiinka meelaha ka ay jiray aan hadda ku noolay oo deegaan ahaan aan ka soo wareegay oo meel kale aan deganahay waxa isleeyahay xaafadii oo ama aniga aan joogay oo makiinadii hebel waxa uu aadi jiray waxa isleeyahay kulli inay furanta qiyaasaya haddii safurnayn ugu yaraan aagas inay ka furan tahay oo wali ay xasuuso ay dad ku nooshaa laga yaaba waqtiyadaas cajiintaas waxyaabaas waqtiyadaas waxaa xasuustaa hadda ka hor xaafad aan deganayn waxaan sameyn jirnay awal gabadha xaafadda degan inay kula hadashaa waqtiga qaadanaysa haddii aan qaraabo ahayn ama walaalo inaan ahayn saas la awoodeed waxaan sameyn jirnay marka haddii wiil la arko isagoo la socda gabar waxaa la dhihi jiray hebel baanta u shiranta u fadhida gabadha raacaysa ama biyaha la soo qaade ama suuqa u raace ama macnaha maxaa la yiraahdaa ii sheeg ida adeeg ku dirsanayso ama waxaa laga yaabaa makiinada cajiinka kale aan ka soo qaadano tusaale habeenkii waxaa laga yaabaa saaxiibada dhex fadhiyo ama ii sheeg ka maqan oo kale inaan gabadhii xaafadii la soo agmarto waqtigaasna waxaa taagan tahay booskii shaaruqan macnaha shaaruqan aad taagan tahay waa bixaysaa gabadha wadaysa cajiin meesha cajiinta geene cajiinta soo qaadanaysaa way soo laabanaysaa xaafadeeda geene adna waa ka soo laabanay habeenkiis waa ku fadhidaa sida caadiga ah dhaqan ahaan Soomaalida waxyaabo ay leedahay jirto laakiin aysan ahayn wax ay dunida kale la qabto markii laga soo tago cajiinta adeega waxyaabahaas oo kale markii rag iyo dumarka ay wada socdaan inta badan gabadha qaada ninkan kaliya gabadhu wuxuu ku helinayaa inay tagto maxaa la yiraahdaa ishak ay tagto makiinada la soo noqdo dhalinyarada xaafadan ay ku dhahan hebel walaa oo shiranta heblaayo la socdaa macnaha hadda waxaa isbedelay shukaansi ugu fududaaday gabadha la socotid inaa saaxiibatihiin inaa walaalatihiin inaa jecel wadaagtihiin wax nonsense waa wax micno ma sameynaysa macnaha awalla gabadha marka la socotay already su'aal laga weydiin jiray macnaha gabadha la socotay yaa waaye marka qaar gabadha qaraabatiina waxa iska leeyahay jecelkeyga macnaha gabar oo asxaab aadkiina oo hooyad kugu soo bartay oo ku dhaxday makiinadaagii ama halkaagii ay ku dhaxdaa waxa iska soo beynay heblaayo ani iyo jecel naga dhaxay ma ogidimiya ma hormarin waa micno beelay macnaha waa micno beelay asleeyahay marka si guud saas waa